waa tahay daawadayaal ku soo dhawaada wixii war naga soo gaara gudaha dalka iyo dibaddiisa. Farmaajo oo sheegay wadada kaliya ee lagu qaadan karo Soomaaliya. Hal askari kaliya oo ka soo jeeda beelaha Bounty 5 ayaa loo xukumay boqolkii bajaajle ee Muqdisho lagu dilay. Jiritaanka Somaliland waxa uu ku xiran yahay caaradda qalinka Farmaajo. Sharax madaxweyne Jubbaland Cabdirashiid Xidig oo qaraxii arka gurigiisa laga soo bixiyay weli hadal haya. Faahfaahin ayaa ka soo baxaysa gabar ka soo baxday salaada taraawiixda oo toorey lagu dilay magaalada Gaalkacyo. Amniga Itoobiya ee Soomaaliya warbixin ayaanu idinkaga haynaa. Dal kale oo Yurub ah oo sheegay inuu aqoonsaday baasaboorka Soomaaliya. Tuhunka dhashay eray bixinta Mareykanka ee duqeynta Soomaaliya. Halka aad nagala socotaan waa Baxda Cable TV. Ku soo dhawaada mar kale qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maalmo kadib si dadban kaga hadlay hadal hayn ka dhalatay khariirada wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya soo bandhigtay, taasi oo Soomaaliya gabi ahaanba laga dhigay inay ka tirsan tahay dowladda Itoobiya. Madaxweyne Farmaajo isagoo la hadlaya jaaliyadda dalka Koonfur Afrika ayuu ka hadlay hadal haynta ku aadan dowladda Itoobiya inay doonayso inay qaadato Soomaaliya. Wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa raaligelin ka bixisay sawir u muuqday qorshe Itoobiya ku fakaraysay sanado badan oo si aan ku talagal ahayn looga soo daabacay bogga wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya. Dadka falanqeeya arrimaha diblomaasiyadda ayaa sheegaya in sawirka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ay soo daabacday inuu yeelan karo macno badan, isla markaana uu xambaarsan yahay fariimo kale. Waxaa jirta colaad soo jireen ah oo u dhaxaysa labada dowladood, waxaana Itoobiya ay mar walba ahayd tan iyo burburkii waddanka saameyn iyo faragelin ku leh Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa laga sugayay jawaab culus, balse wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay intaasi uu kala hadlay dhiggiisa Itoobiya. Madaxweyne Farmaajo isagoo la hadlaya jaaliyadda dalka Koonfur Afrika ayuu ka hadlay hadal haynta ku aadan dowladda Itoobiya inay doonayso inay qaadato Soomaaliya. Waxaana uu sidoo kale ka hadlay dad uu sheegay inay adeegsadaan dalalka shisheeye. niyada khayr u sheega in malaka karta mala Soomaaliya tacaawin waan isku dayay meeqasana isku dayay dadkii naga horeeyay waxba garanay oo dadkooda fiicnaa banaanka laga maray oo wadamada anaga Afrika ugu horeeyo xorriyad qaataana Soomaaliya lagu soo dhaco dadkiina kor u qaada kalsoonida kor u qaada hadii ay jireen madax aad shaki ka qabtaan walaal shaki hanaga qabin anaga ay ka hordimanayna anaga diyaar ah inaan ka hordimanno laakiin hanaga harino kaas wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la hadlayay jaaliyadda Koonfur Afrika. Hal askari oo kale soo jeeda beelaha Bounty 5 ayaa loo xukumay boqolkii bajaajle ee Muqdisho lagu dilay. Tirada dhalinyarada Soomaaliyeed ee ciidanka booliska Soomaaliya ay ku dileen magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inay gaarayaan 103 qof oo muddo ku dhow hal sano iyo bar. waxaana markii ugu horeysay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya xukun ku riday askarigii ugu horeeyay ee dil u geystay qof shacab ah magaalada Muqdisho isla markaana ka tirsan booliska Soomaaliya. Maxkamadda ayaa go'aan ku dhawaaqday Sabtidii askariga dilka lagu xukumay la sheegay in qof shacab ah oo bajaajle ah ku dilay isgoyska Taraboonka, qof kalena ku dhaawacay, waana askarigii ugu horeeyay ee la xukumo dil bajaajle. askariga dilka lagu xukumay oo ahaa wiil dhalinyaro ah ayaa isku dhiibay ciidamada booliska maalintii uu dilka geystay isagoo oynaya oo sheegaya inay rasaasta uga fakatay. ciidamo ku sugnaa rugtaas ayaa iyadoo dadweynaha ay maqlayaan kula taliyay askarigan inuu cararo, balse isaga ayaa go'aansaday inuu isku dhiibo
ciidanka kadib markii uu naxay isla markaana uu baxsan waayay. sidoo kale waxaa la ogaaday in askari tirsan booliska uu ka soo jeedo beelaha loogu yeero Bounty 5 ee la yeeso, waxaana taasi ay u fududeysay dowladda in go'aan ay qaadato maadaama aysan cadaadis kala kulmin beeshiisa. Taliye ku-xigeenka labaad ee ciidamada booliska Soomaaliya General Sakiya Xuseen oo barteeda Facebook ku daabacday go'aanka maxkamadda isla markaana soo dhaweysay go'aanka maxkamadda ee xukunka dilka ah, waxaana darawal u ahaa askari boolis oo 3 bil ka hor shacab bajaajlaha ku dilay isgoyska Howlwadaag ee gobolka Banaadir. Xildhibaan Xaashi Daahir Diiriye oo ka tirsan baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa sheegay in taliye ku-xigeenka labaad ee booliska Sakiya Xuseen Axmed ay diiday in la soo qabto askari boolis ah, sidoo kalena darawal u ahaa Sakiya oo bilooyin ka hor qof shacab ah ku dilay isgoyska Howlwadaag ee gobolka Banaadir. marxuumkaas uu dilay darawalka Sakiya ayaa ahaa wiil dhalinyaro ah oo kaxaynayay mooto bajaaj, waxaana uu ifka kaga tagay carruur iyo xaaskiisa oo uur leh. warar kale ayaa sheegaya in askarigaas dilka Howlwadaag ka geystay ay qaraabo dhow yihiin General Sakiya markaana Kismaayo. Xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo sharaxinta madaxweynaha Jubbaland ayaa sharaxaad dheeraad ah ka bixiyay qarax dhowaan laga soo saaray meel ku dhow hoyga uu ka degan yahay magaalada Kismaayo. Xildhibaanka ayaa sheegay in xogta qarax ay hayeen maalmo ka hor isla markaana ay ka hortageen, balse waxa uu mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ku eedeeyay inay ka dambeeyeen qaraxaas. Xildhibaanka ayaa ku eedeeyay madaxtooyada Jubbaland in laga soo abaabulay qorshe la doonayay in lagu dilo isaga, waxaana si gaar ah ugu eedeeyay mas'uuliyiinta ammaanka ee madaxtooyada Jubbaland. Si gaar ah ayaa loo sheegay taliyaha ciidamada ilaalada madaxtooyada Jubbaland oo lagu magacaabo Yaxbul, waxaana jira walaac badan oo musharaxiinta Jubbaland ay ka qabaan dhanka ammaanka iyo hanaanka madaxweynaha Jubbaland uu qorsheynayo inay u dhacdo xulashada baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha. Xiriirlinta qaranka Soomaaliya iyo tan Jubbaland iyo saraakiisha AMISOM ayuu ka dalbaday inay falkaasi ay ku sameeyaan baaris degdeg ah, isla markaana sheegay in aan la iskaga hari doonin, sidoo kalena sheegay inuu soo bandhigi doono cadeymo dheeraad ah. dhacdadu waxay dhacday subaxii oo arrintu ay fashilantay, laakiin hay'adaha amnigu social media ay ka ogaadeen waxa ka socda iyo sida uu dhacay. waxaa qaraxaas aan xogtiisa hayay ama qorshayaashiisa aan hayay, xogtiisana aan helay, maxaan ku idhaahdaa xilli ku filan inaan ka diyaar garowno, isla mar ahaantaana annaga oo xog hayna ayaa haddana information ku yimid. shakhsiyaad yari oo kooban ayaa hawshaas abaabulkeeda, diyaarinteeda iyo fulinteedaba isku xil saaray oo doonaya inay fuliyaan. waxaa wax lala yaaba ah, hay'adihii amniga looma yeelin, anteenadii lama daminin, sidii loo soo socday ayaa la yimid goobtii shakhsiyaadkii awalba hawsha ka shaqaynayay, waxayna xambaarteen miinadii meesha taal. waxaan rabaa inaan u soo jeediyo xeer ilaalinta qaranka iyo xeer ilaalinta Jubbaland inay baaritaan dhaba sameeyaan, sababtoo waa crime, waa dembi, waa shirqool, waa isku day laga soo abaabulay xaruntii ugu sarreysay ee maxaan ku idhaahdaa madaxtooyada Jubbaland. waxaana caddaynaya taliyaha ilaalada madaxtooyada Jubbaland ninka la yidhaahdo Yaxbul ayaa bahashaas iyadoon la kala furin, hay'adihii amniga loo yeelin, maxaan ku idhahdaa anteenadii la daminin, baaritaan la samaynin, ku ritay gaari saktiid ah oo uu watay isagoo ay la socoto 2 askari oo kaliya. su-aashaan mar labaad shacabka weydiinaya waxay tahay, bamba meel taalla ooda adigu dhigin oodan ogeyn inaad intaad qaadato baabuurkaaga saarata ma dhici kartaa? kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha ee Jubbaland. jiritaanka Somaliland waxa uu ku xiran yahay caaladda qalinka Farmaajo. waa run ee rumayso in jiritaanka Somaliland uu ku xiran yahay caaladda qalinka Farmaajo. waxa kaliya ee looga baahan yahay ayaa ah inuu qaato go'aan dhiiran oo uu maamul uga sameynayo gobollada loo yaqaan SSC oo ah Sool, Sanaag iyo Cayn. inta isweydiinta leh ayaa ah sababta madaxweyne Farmaajo ugu dhiiran yahay inuu qaato go'aan noocaas ah oo sugaya midnimada Soomaaliya oo uu maamul ugu sameyn lahayd gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn
oo dadkoodu aad u taageeraan dowladda dhexe iyo midnimada Soomaaliya labadaba. Haddii madaxweyne Farmaajo uu maamul ka sameeyo gobollada SSC uma u baahdeen inuu waanwaan la galo Somaliland, waxaana meesha ka bixi lahaa riyada Somaliland ee ah inay go'i karto oo noqon karto waddan madax bannaan. Haddaba muxuu Farmaajo ka baqayaa? Ilaa hadda waa la garan laayahay waxa ka baqayo Farmaajo oo uu tallaabo uga qaadi laayahay dib u mideynta Soomaaliya. Gaalkacyo. Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in kooxo hubeysan ay magaalada ku dileen gabar ka soo baxday masjidka salaadii taraawiixda kadib. Dilka oo ka dhacay dhanka waqooyi ee magaalada Gaalkacyo geystay gabar 22 sano jir ahayd oo la sheegay inay ka soo baxday masjid ku yaala xaafadda Garsoor ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo. Gabadha oo lagu magacaabi jiray Nimco Cumar Shire Xuur ayaa la sheegay in dilkeeda loo adeegsaday aaladda loo yaqaan tooreyda, waxaana kadib goobta ka baxsaday dadkii geystay dilkeeda. Wararka ayaa sheegaya in marka hore Nimco dhaawac daran uu ka soo gaaray tooreyda dhuunta kaga dhacday, waxaase markii dambe ay ku geeriyootay isbitaal ku yaala magaalada Gaalkacyo. Maamulka Puntland ayaa sheegay in ay ku raad joogaan dadkii ka dambeeyay dilka xanuunka badan ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo, iyadoo aan la ogeyn sababta dilkeeda ka dambeysay. Ciidamada ayaa saaka baaritaano ka wada magaalada Gaalkacyo, waxayna baadigoobayaan raggii ka dambeeyay dilka gabadhaas. 24 February, magaalada Gaalkacyo waxaa kufsi dil ku xigay lagu geystay gabar 12 sano jir ah, taasi oo lagu magacaabi jiray Caasho Ilyas Aadan, iyadoo ragga dilkeeda ka dambeeyay oo 3 ahaa ay yihiin xukun sugayaal maadaama dil toogasho ah loogu xukumay. Kana Amsterdam, dowladda Holland ayaa ay aqoonsatay in dalkeeda lagu gali karo baasaboorka Soomaaliya ee la siiyo shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta Soomaalida. Safiirka Soomaaliya u fadhiya Midowga Yurub Danjire Cali Siciid Faqi ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Holland ay si rasmi ah u aqoonsatay in dalkeeda lagu gali karo baasaboorka Soomaaliga, gaar ahaan kan shaqaalaha iyo kan diblomaasiyiinta. Waxaan aad ugu faraxsanahay in la wadaago in dowladda Netherland ay aqoonsatay baasaboorka diblomaasiga iyo kuwa serviska laga soo bilaabo 15 May. Baasaboorada la aqoonsaday waxaa laga soo bilaabay kuwa la bixiyay 2004 ayuu safiirku bartiisa soo dhigay. Tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaalada wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ugu jirto sidii loo xoojin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya la leedahay dalalka caalamka. Halka aad nagala socotaan waa Baxda Cable TV, fadlan subscribe saar channelka, gambaralkana furo si ay ku soo gaaraan warbixinada aan soo gelino.